gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu mar uu ka qayb galay ololaha dhirbeerista caasimadda ayuu ku baaqay in muwaadin walba uu ka qayb qaato horumarinta bilicda deegaanka isla markaana guryaha hortooda lagu beero dhir si Muqdisho ay u noqoto magaalo la mid ah kuwa horumaray. ujeedaan maanta geedo casri ah ayaan ku beeraynaa magaalada Muqdisho ujeedadana tahay inaan soo celino bilicdii anaga maamulka gobolkana maamulka shacabkana waxaan hore u balaqaadnay in shacabka loo adeego bilicda la soo celiyo magaaladan sidii barsimaadkii ahaan jirtay ay ku soo noqoto tan waa tusaale waa bilow shacabku bilaabeen laakiin waxaan rabnaa qof kasta Soomaaliyeed gurigiisa hortiisa inuu geedo ku beero qof kasta Soomaaliyeed inuu bilicda lagala qayb qaato waayo magaalada madaxda hadaan bilic ka dhigan anaga Soomaaliya oo dhan bilic ma noqonayso marka wax isku xiran waajibna wada saaran waaye anagana waajibkaasna ka soo dhalaalno waxaan u dhaaranay maamulkan u hayno. maamul gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii dambe waxa uu xoog saarayay horumarinta bilicda caasimadda iyadoo ay xiligan socdaan mashaariic kala duwan oo dib loogu soo celinayo bilicdii ay barsimaadkii lahayd Muqdisho. Nuur Siciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.